السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مeel baa joogtaan waa idin salaamay anoo walaalkiina cali muco shariif calaamooyinka oo lagu gorto qiyaamaha inuu soo dhow yahay waxaa ka mid ah qofka in uu cuno wax xaaraan ah xaaraanti in aad cuntid ma xumee laakiin xaaraantii ayaa lagu faanaya lagu tusaya taasaa waxay noqotay wax oo maskaxdeeda aad u weyn maalmahan aniga maskaxdeeda igu dhacday aan qaadan waayo wax mareyka ka dhacay waa aragnaa walaalaha madow qaar baa la dilay waa damqanaynaa waa dafaacaynaa waa caawinayna intaan caawin karno laakiin in aad meel aad gashid oo alaab aad soo gurtid oo video aad iska duubtid iyo arka aniga waxaana soo dhacay bal ma ka baqanaysid miyaa calooshaada wax xaaraan inaad gelisid ma ka baqanaysid miyaa salaadaha aad gutid in salaadaha iyo ducada inuu ilaahay ka aqbalin waxaas oo dhan ma fiirinaysid miyaa caruurta aad korinaysid oo berito waxaa leedahay caruurtii gangister bay noqdeen sheekhow caruurtaa laga qaatay sheekhow intaan ka dhacay ilmihii casil waalidiin bay noqdeen ilmihii duco ma maqlaayaan hadal ma maqlaayaan kaale cunuga ii waani kaale cunuga duco ii duceey kaale cunuga qur-aan igu akhri hadhow intayn imaanin bal hadda ka fiirso ilmahay waxa siinaysid ilmahay calooshooda waxa gelinaysid waa muhiim hadda aad ugu fiirso nabigan maxamed sallallahu alayhi wasallam ayaa nin saxaabi nin u shaqeyn jiray guriga maxamed sallallahu alayhi wasallam guriga ku soo koray oo nin la yaqaan u yahay ninkaas markuu dhintay saxaabada waxay dhaheen yaa sha Allah ninkaas waa ahlul janna ninkaas waa ahlul janna maxaa dhaca waa nin nabiga maxamed sallallahu alayhi wasallam guriga ku soo koray waaye markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay may u dhahay may nabi wuxuu dhahay may ninka janna ma gelin maxaa dhacay dagaalkii mar dagaal la galay dagaalkii maalkii alaabtii la soo qaaday asigoon ummadii loo qeybinin ayuu wax yar ka qaatay shay yar oo u eg shay yar yani kabaha maxaa la dunta la geliyo dunta kabaha la geliyo wax la mid ah wax dunta la mid la eg ah ama maxaa la xiriga lagu xiro kabaha in la eg intaas ku soo qaatay maanta taas uu dhahay taasaa cadaabaysaa taas baa maanta dhibaysa janno inuu galo taasaa maanta qabri lagu cadaabayaa saxaabada arrintaas markay maqleen arrinta cajiib la noqotay markaas guriyahooda ku noqdeen wixii maal ay soo qaateen amar la'aan wallahi soo celiyeen maxaa dhacay aakhiradooda u baqayaan allahu akbar aakhiradooda ay u baqayaan maalkooda inay soo celiyeen allah quraankiisa wuxuu ku dhahay اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون الله أكبر ما أنت قعموضا عن كهذا السينينا أفكر ولا حرايا قعمها هلا يا إلهي وخو هبل وحر يوسمي لوها هلا إلهي وهبل وحر ماشى سؤادي وحر يوصل دعي باللقاء يوسمي إساس شيء كذا ما سهلنا ولا شيء sheekada ma sahlno dad waxa arkaysa madqan waxay ku leeyihiin maalka oo gaalasha waa ku banaan tahay qaar culamaan ka maqlay gaalka alaabtooda waa been waa u sheeg kartaa sibrad waa gal kartaa lacag waa dhici kartaa khayaano waa sameyn kartaa waa lagu ogol yahay billaqa waa sameyn kartaa may taasi diinta ma waafaqsano diinta islaamka ma waafaqsano qof gaal ama muslim wuxuu ahaado maalkiisa ma lagu ogolo sharaftiisa inay kaga dhacdo waa inaa ilaalisaa mareykanaa lagu keenay adoo qaxooti ah oo Kenya ku jirtay kaamka Kenya ku jirtay ama Ethiopia mareykan lagu keenay guriga lagu siiyay sharciga lagu siiyay passport mareykan lagu siiyay shaqo lagu siiyay amaanka lagu ilaaliyay intii wadanka aad difaac lahayd wadanka inta soo korin lahayd wadanka inta garabka gal lahayd ayaa maanta waxa keentay bilaq ina keentid wixii sheekadii wadankaaga ugu soo tagtay sheekadii wadanka aad ku burburisay ayaa maanta mareykanka keentay isku shiix ilaahay ka baq maxaa dhacay waa lagu xisaabinaya xaasibu anfusakum qabla an tuhasabu waa lagu xisaabinaya wallahi thumma wallahi waa lagu xisaabinaya maalkan bilaqada aad soo dhacday aad ku faafaanaysid waxaan kula talin lahaa ilaahay ka baqo ilaahay ugu baqo meeshiisa ku celi adduunka barita ka tagaysaa ilaahay wax khayr la tagay insha Allah taala meel ba joogto in salaamay maalka aad soo dhacdeen maalka bilaqada lagu soo qaatay walaalaha Soomaalidan la hadlaya oo Minnesota iyo Minneapolis joogan iyo adduunka Soomaaliya meel ba joogtaan maalka aad soo dhacday oo maalkaaga aan ahayn hadda ba iska fududay intaan lagu cadaabin hadda ba gacantaad ka bixin insha Allah taala intaan lagu cadaabin meel ba joogto in salaamay walaalkina cali mucashir waxaan leeyahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.